waxaa hadalhayn xoogan dhalisay ama international attention waxa loo yaqaano arinta Ilhan Cumar gabadheeda oo tagtay dalka Cuba si ay u gaarsiiso gargaar caafimaad iyo waliba cunto ay u gaarsiiso ayaa adduunka oo dhan isqabsaday waliba Mareykanka gaar ahaan saacadihii la soo dhaafay. Ilhan Cumar gabadha ay dhashay ee lagu magacaabo Isra Hirsi ayaa waxay go'aansatay in ay dalka Cuba gaarsiiso gargaar degdeg ah maadaama uu Donald Trump go'doomiyay korontada laga jaray saliidii Venezuela ka imaan jirtay ee shidaalkooda iyo tamarta dhalinteeda ka qayb qaadan jiray uu Donald Trump ka jaray maalmihii la soo dhaafay March ama bishii saddexaad oo dhan koronto la'aan iyo dukum daakam uu ahaa wadankaas ayaa waxay go'aansatay in ay si degdeg ah ayada iyo waliba team ayada la socday halkaasi booqdaan Cuba iyo waliba magaalooyinka ugu dardaran ee caasimadda Havana lagu magacaabo ayada oo xaaladda Cuba ay ka sii daray. sidoo kale waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyay qolooyinkii cunsuriyiinta ahaa New York Post oo macnaha ishagay arimahaasi oo uga hadlay si negative ah ayaga oo ku tilmaamay gabadha Ilhan Cumar cuntooyinkan ay gaarsiisay qolooyinkan Cubanka ah in ay ku bahdilayso dadka reer Cuba iyo waliba dadka u dhashay wadankaasi ay ku bahdilayso ayada oo sida ay sheegeen isku soo sawirtay hotel 5 star ah oo ay ka degtay Cuba markii ay tagtay hotelada 5 star ka ah ee macnaha korontada aysan ka tagin ee ayaga backup ka haysto ama waxyaabaha ay isku dabaraan. wargeyska New York Post ayaa waxay soo post-gareeyay ama ay soo macnaha la wadaageen baraha bulshada ee caalamka bartooda X ay kula wadaageen in gabadha Ilhan Cumar ee macnaha falkan ay ku dhaqaaqday uu ka dhigan yahay jazz iyo waliba waxyaabihii looga bartay ay soo bandhigeen. Ilhan Cumar gabadheeda Isra Hirsi ayaa arimahaasi uga jawaabtay in aysan wax dhaga u dhigeenin sidoo kale inay ku faraxsan tahay inay Cuba tagtay gaarsiisay caawimaad ayada oo sida aan ognahay qolooyinkan ay u tahay backlash ama dabar jabin qolooyinka Republicanka ah ayada oo macnaha ishagay Ilhan Cumar iyo waliba hooyadeed ay macnaha sida ay u circirsanayaan la wada ogyahay iyo waliba aqalka Congress-ka Donald Trump iyo ayada dagaalkeeda aan weligiis dhamaanin ayaa waxay haddana macnaha ishagay dabar jabin u tahay wadan Trump uu cunqabateyn xagga korontada ah saaray ama korontada uu ka jartay bishii la soo dhaafay iyo waliba bishan hadda ay ku jirno oo dhan mugdi ama gudcur ku jiro in Ilhan Cumar ama xildhibaan Ilhan Cumar gabar ay dhashay Isra Hirsi lagu magacaabo halkaasi intay tagto ay macnaha record breaking ay sameeyso ama macnaha ishayga recordka ay ka jabiso Donald Trump iyo waxyaabihii uu la damacsanaa. sida ognahay Donald Trump xataa wuxuu gaaray heer uu qolooyinkan wadamadan caalamka oo dhan uu goodiyo inuu cunaqabateyn saari doono ama canshuuro dheeraad ah inuu dusha ka saari doono oo aysan awoodin haddii ay isku dayaan in ay caawiyaan Cuba. laakiin arintan ayaa fajac noqotay oo warbaahinta caalamka oo dhan ayaa hadal hayso talaabadan ay qaaday Isra Hirsi. falcelintan New York Post ayaa aad sidoo kale ay u bumbuuninayaan qolooyinkan dimuqraadiyiinta ee Ilhan Cumar xisbigooda ay ka tirsan tahay ayaga oo uga falceliyay in macnaha ay desperate u yihiin gabar yar oo xildhibaan Ilhan Cumar ay dhashay garab istaag ay u muujisay Cuba oo u go'doomiyay Donald Trump ay ku tilmaameen wax macnaha bahdil ah ama yaqyaqsi ah in ay macnaha uga jawaabaan qaabkaasi ayaga oo qoraalkan aad arkaysaan ka soo qoray New York Post iyo waliba Newsweek oo arimahaasi ku tilmaamay in ay bahdil tahay ay ku jeesjeesayso dadka u dhashay Cuba. gabadha Ilhan Cumar ee Isra Hirsi ayaa sidoo kale barteeda Twitter X ayaa waxay la wadaagtay soo repost gareysay New York Post postigoodii ama macnaha ishayga faaladoodii cunsurnimada ahayd ee macnaha ay ku suurad xumeynayeen Ilhan Cumar gabadheeda iyo waxa ay ka wado Cuba oo ay ku tilmaameen in ay tahay bahdil ay booqatay ee macnaha ishayga halkaasi ay sidoo kale ay sheegeen in ay flight ku tagtay ama duulimaad hotel 5 star ahna ay ka degtay magaalada Havana ee dalka Cuba ayada oo sidoo kale soo post gareysay sawir ayada oo joogto hotelkeedii 5 star ka ahaa. sidoo kale waxay soo qaateen sawirro macnaha bahdilan oo reer Cuba oo macnaha ay soo sawireen meelo qashin ah iyo waxyaabo noocaas ay soo sawireen ayay soo barbardhigeen iyaga oo ku tilmaamayo in Ilhan Cumar gabadheeda ee macnaha bahdilayso qolooyinkan wax heer ay ka gaartay ay ku tilmaamayso in macnaha ishagay fariinta ay gudbinayso ay tahay fariin macnaha liidid ah oo dadkan reer Cuba ay liidayso refugee haweeney ah ay dhashay Congresswoman Ilhan Cumar ay dhashay sidoo kale Soomaaliya ka soo jeedo ayaa macnaha waxay ka soo qaadeen ba arintan in ay bahdil u tahay dadka reer Cuba
qof micnaha noocaas ah oo hooyadii ay qaxootinimo wadanka kusoo gashay micnaha asalkeedu Soomaali tahay in ay micnaha caawimaad gaarsiiso Cuba oo Donald Trump uu go'doomiyay ayaa waxay ka soo qaadeen bahdil micnaha qof sidaas asaga u bahdilan sida ay hadalka u dhigahayaan oo micnaha refugee ah Soomaali ah in uu dhaho maanta caawimaad baan gaarsiiyay Cuba ayaga oo tii ka darneed sameeyay oo micnaha Donald Trump teamkiisa go'doomiyay dalka Cuba gabi ahaan inuu Donald Trump go'doomiyay dalka Cuba waxba uma arkaan laakiin waxay wax weyn u arkaan isra xirsi in ay halkaasi tagtay oo sidoo kale caawimaad ama cunto ama waxyaabo muhiim ah oo priority ama hortabin leh ay u soo qaybiso qolooyinkan reer Cuba ee halkaasi ku dhibaataysan sidoo kale xaaladaha bariga dhexe ayaa sii kala fogaanahayo Mareykanka iyo Israa'iil ayaa aad u sii kala fogaanaya saacadihii la soo dhaafay hadda aan kula hadlahayo wax yar ka hor waxa iskhilaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ninka lagu magacaabo iyo waliba Netanyahu ayaa waxay isku khilaafeen ama isku fahmi waayeen dagaalka bariga dhexe ayada oo wada hadal uu socdo oo macnaha ishaga bariga dhexe iyo waliba Iran la dhexdhexaadinayo Israa'iil la dhexdhexaadinayo ayaa wuxuu bilaabay maamulka Netanyahu in ay weeraraan West Bank meesha lagu magacaabo ee Falastiiniyiinta ay haystaan Falastiiniyiinta wadankada ama Falastiin iyaga ay ku magacaabaan inay tahay West Bank ama occupied West Bank ay ku magacaabaan in uu Netanyahu maamulkiisa weeraray saacadihii la soo dhaafay ayaa la soo sheegay marka arintan ayaa wicnaha waxay ka dhigan tahay sida madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu sheegayba in ay dhabar jabin ku tahay dagaalka macnaha dibadda lagula jiro oo uu kala jeedo Iran iyo waliba dhankaas iyo bariga dhexe ku wajahan oo Iran iyo waliba Israa'iil ay ku jiraan iyo Mareykankana uu dhinac kaga jiro uu ku tilmaamay inay dhabar jabin ku tahay ayada oo Falastiin Israa'iil uu macnaha xiisad kale ka dhax qarxiyo Netanyahu maamulkiisa ayada oo la tacaalahayo tii Iran dhaxtaalay marka kala fogaansho ayaa muuqato iyo waliba iskhilaaf saacadihii la soo dhaafay Netanyahu iyo waliba JD Vance oo ah madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump